dibadda kulley qiimayntiisa ayaan ku horeyn la waxyaalo badan oo hortay wadanayaa soo qaadeenna waa la waafaqsanahay waxa moodaa halkaa siyaasadii arrimaha dibadda iyo qarannimadeedu halkay ka taagneed iyo aragtidii madax bannaanideedu halka ay lahayd wax badan baa iska bedelay oo aad baynu ugu soo ururaynaa inaynu noqono u egnahay maanta maamul goboleed hoos yimaada maxaa ku dhahda Soomaaliya waxaanu ka warhaynaa maamulkii hawada waxa la wareegtay Muqdisho dayuuradan Muqdisho laga hagiyay Hargeysa ma timaado kharashka iyo wixii la qaadaya la wada lahaana halka lagu qaado waa halka heshiis hore oo aynu laga wada galay waa xafiis wada jira loo sameeyay lagaga heshiiyeyna waa la iska laalaabay oo waa la maroorsaday arrintaa koonfuri way maroorsatay waxaana moodaa maahe waana u hergashay waxaanu ka warqabnaa maanta xujaajtii sanadkan dhoofi lahayd in baasaboorradeeda xukuumadda Soomaaliya ay u qaadayso oo u soo fiisaynayso oo iyadoo ay hadal garanayso qaybinaysa macatirada xujaajta qaybin doonta halka laga keeni doono waxaanu ka warhaynaa oo aanu maan aragay oo xaqiijinaya in xafiis baasaboorrada lagu sameeyaa oo laga soo magacaabay xamar uu Hargeysa ka furayo aynu ka warqabno xukuumadduna ka warqabto lagu ilaalinayo sidaas ku shaqeynaya oo la ogolaaday magacaabis xamar ka timid iyo baasaboorkii xafiiskii jinsiyadaha iyo socdaallada ka shaqeynaya inuu Hargeysa ka furayahay ay muddo ogol lahayd oo inoo shaqeynaya iyana warkeeda waa haynaa waxaynu warkeeda haynaa shirka Brussels ka furmaya ee horena tallaabooyinka la isku dayay ee Soomaaliland in laga joojiyo heshiiskii hore ee aynu labadeena dhinac wada galle ahaa arrimaha horumarka iyo maxaa ku raada gargaarka bini'aadamnimo iyo waxyaalaha inaan la iska caqaladeyn ee baryahanba ay diidanaayeen inay dib u cusboonaysiiyaan in halkii lagu soo afjari lahaa maanta ay halkaa tahayna waynu ka warhaynaa waxyaalahaasoo dhan ma muuqato tallaabooyinkii laga qaaday ee xukuumad ahaan aynu kaga hortagayna kaga gaashaamanayay meel lagu hadalhayo iyo dhaqdhaqaaq ka socda haba yaraatee anigu ma ogiyo ma maqan hadday tahawada tay hadday taa xujaajta tay hadday ta baasaboorkii Hargeysa ka jooga tahay hadday ta Brussels tahay tallaabooyin garab socda oo aynu inagu leenahay oo waxa aynu kaga hawlgalayno wax kala garab dhigayno ilaa imaka anigu kama warhayo hadduu dagol hoog yahay waa la igu kordhin arrintaa halkaa waxaa ka muuqata arrintii maxaan ku dhahdaa siyaasadii arrimaha dibaddu inay qool inugu soo ururayo oo maalinba inugu sii geejismayso run ahaantii inaynu ku jiraabaa ayaa u agtahay taasoo socota ayaa haddana arrimihii gudaha aad moodaa tafaraaraqii iyo xasilooni darradii iyo iska hor imaadkii iyo waxyaalahaasina iyaduna soo badanaya waxaynu ka warhaynaa arrinta tukaraq oo ay ahayd xukuumaddu inay hogaamiso iyadaa ka mas-uula nabadgelyada dalka iyadaa ka mas-uula sugidda xuduudyada iyadaa ka mas-uula ilaalinta dalka ummadda inteeda kale inay ku daba joogsato oo ku ilaaliso mucaarad iyo muxaafidba horaa loogu muujiyey oo cid walba waa u muujisay waxaase muuqata hogaamintii halkaa xukuumaddu ay ka hogaamin lahayd arrinka haddana waxaynu maqlaynaa waxyaalo kale oo ka soo horjeedo inay ku lug leeday iyadu iyo inaanay ku lahayn aanay caddaynayno dalkana ku wejigabax ku ahoo nabad la dawarsanaya baad haddana arkaysaa lagu soo diiday oo la sheegaya in lagu soo diiday wadayaabaa shalayto ka hadlaaya airportka aan dhegaysanay miidiyaha ka dhegaysanaya qoladay ka warrameen ay yidhaaheen waxyaalaha la soo galay baa ka daba warramay oo iyaguna wixii ka soo horjeeda shaqeyn waxa maanaane la dhaaf waa nuriyo meel hiblaayo markaa tagtaan ee
labadii dhageysaan ayuuma hadal noo furi kara waa kala mid kula hadlayna ma jiro qadiyadaha ay kaas xukuumaddu markay soo galeen dad badan oo dad hore oo lagu xirxiyay baa jiray qadiyada lafteeda tan iyada xukuumaddu ma yara dhigtay aynu helo oo aynu warkeeda ogaano tan ma yara ka dambaysa ma wax lagu bari furayaaba ma ka itaal darra ay ku dhiciraadayba aan ogaano hawshii ay xukuumaddu hogaamin leeyd ee ummaddu daba fadhiday maxaa u dhiibay laba oday iyo saddex oday oo loo arkay inay iska sarfeen maxaa u dhiibay oo taladeeda gacan geliyay marka taana intaasaan kaga gudbi lahaa dhibaatooyinka dalka runtii arrimaha maxaan ku idhaahdaa xaaladda arrimaha guduhu mar walba reflection weyn bay ka muujisay arrimaha dibadda kolba sida gudahaada isugu xidhayay ayuunbay meel mar u noqon kartaa ama sawir wanaagsan uga gudbin kartaa taada dabaddana arrinta ceelaf weyn ee ilaa xukuumaddii hore soo jiitanaysay in badan baa dhaliisheeda ay leedahay ciddii nabadgelyada iyo dalkan ammaankeeda ka mas-uul ahayd ee ummadda wada hadalsiinaysa ee wax u kala qoraysa ee kolba waxaasaa lagu heshiiyey ninka bardaba jabiya waxaasaa lagu qaadayaa lahay dee gacanku haynteedii ayaa leeyahay dhaliil badan baa ayaa halkaa ka timid hadday tii hore tahay iyo hadday toddoba tahayba waxaan rajaynayaa imaka fadhigaa loo fadhiyo insha allahu haddii loo daayo oo loo gacan baneeyo bal wixii ka soo baxaa ilaan odayaasha iyo ergadu fulin maayaana waa xukuumad inta loo dhiibaa inay ku ilaalise ee meel marise inay waajibkeeda ka gudataabay ayaynu rajaynaynaa waxaan runtii halkaa aad iyo aad aan odayaasha hore u quracsanahay riftkii ama dildilaacii ka yimi doorashada dhaymaheedii inay xukuumaddu wax badan dhaqdhaqaajiso ay ka gashaabaa looga baahan yahay waxaad moodaa marar badan inta talena la isweydiiyo oo tala la isugu yeedho haddana marka wax la fulinayo in haddana la dhinaceeyo oo ma garanaysaa lagu kala baydhaabaa marar badan muuqata waxaan leeyahay arrinkaa hogaaminta ummaddu marna waa qarannimada somaliland waa loo dhayay oo mucaar iyo muxaafid ma kala lehe ee waa waxaanu wada ilaashanayno marna waa waxaynu gudaheenna ku tartamayno oo waa maamulkeenna gudihiisa labadii haynoo kala socnaa oo xukuumaddu wixii qarannimada aana qarannimaha ku wada hogaamiso diyaar bay ummaddu u wada tahay wixii qarannimada ay qarannimo lagula wada shaqeeyo wixii innaga dhexdeennihi tartankeennii halkeeda ha yimaado oo aynu dee tartankeeda ku tartanno markaynu badbaadinno ama aynu sakuyur garayno tii guud marka waxaan leeyahay taana hogaaminteeda xukuumaddu ha iska xil saarto oo ha qaadato roolkii ahaa inay qarannimada ummadda oo dhan ku hogaamiso oo ay u gobol ballaarsato maxaan ku idhaahdaa kuna horgasho arrin specific ahoo iyana wax badan xaaladda ka saamaynaysa oo doorashooyinka guud ee inagu soo socda ah oo haddaan maanta laga sii hawlgelin oo xaaladdu halkay maanta taagan tahay aan laga shaqaynin oo wax laga bedelin xeerkaasi markuu inoo yimaado ee uu ansaxmo xeer shaqayn doono ma aha haddaan xaaladeeda wax laga bedelin xaaladda taagan haddaan laga sii hawlgelin waxaa ka mid ah oo ka warhaysa komishinkii doorashooyinka qaranka xisbiga waddan wuu qaadaa wuxuu caddeeyey doorasho ay qabtaan oo dambe inaanu ku gelin sababaha uu u cuskadayna golahan uu hayaa iyadoo qoraal ah oo ilaa 30 qodoba oo 30kaa qodobba arrimoodee dhacay mid walba xeerka la jebiyey uu ku hor qoran yahay oo wax la iska bala awaalay aanay ahayn ayaa golahan hayaa madaxweynuhu uu hayaa xisbiyada qaranka iyo inta daneeyayaasha oo dhan way wada haystaan mid walba wuxuu ka hayaa arrinkaasi xaalad taagan weeye oo had aadana moodo in xukuumadda iyo komishanka ay dhagaha ka furaysteen oo inoo wada ay leeyihiin halka lagu socdaana ay tahay doorasho aan la wada gelin aynu maalinta ka dambaysa ku sii dhawaanayno haddii aan doorashada la wada gelinna dee cidda doorasho soo dhigan doonta degme aan doorasho u diyaar ahayn inay ka qabsoonto cidda sanduuq soo dhiganaysa iyadaa iman doonta maalinta doorashada markii heshiis lagu wada yahay inamada ilmaadeerka ah ee tuulo walba ka tartamaya ay diyaar u wada yihiin inay sanduuqa wada dhigtaan ayuunbaa sanduuqu dhigmaya
laakiin saddexina oo imaadeen hadduu midna yidhaa waan dhiganayaa qaarna yidhaahana la dhigi maayo dalka oo dhan inuu khalkhal gelaya halkaa waa ka garanaya anigu waxaan qabaa war halkaa ha la doono oo xalkeeda ha la doono oo xeer baa ina tilmaamaya oo marka eedahaas yimaadaan madaxweynaha waxaa ku waajiba oo qodobka 14aad ee xeerka doorashada golaha wakiilada golaha madaxtooyada iyo golayaasha deegaanku wuxuu waajibinayaa in madaxweynuhu u xil saaro guddi baariseed uu xil saaro oo guddida baariseed waxa ay soo hesho madaxweynuhu ku go'aan qaato hadduu kala dirayo iyo haddii aanu kala dirayba intaasaa madaxweynuhu laga laayay isagii baa markhaati noqday oo yidhi guddigu way shaqaysayo xafiisyadoodiina way fureen qaranka doorasho xor iyo xalaalna way qabteen cabashadaa wadani sharciga ma waafaqsanaa wax meesha qabtadee maaha waxa lagu waajibiyey oo xeerku amraya madaxweynaha inuu guddi magacaabo baaris keenta oo aanu caqligiisa ku go'aan qaadanin natiijada ka soo baxda baarista uu ku go'aan qaato anu waxaan qabaa waa fure laga geli karo inaynu xallilo dhibaatada soo socota ee sidii guddigaa loo magacaabo xeerkaana loo fulin lahaa halkaa ha laga galo ha laga dayo taladeed madaxtooyada ha loo geeyo baan oran seconded talabaad 1 second saami qaybsigaas dhibaatadu uu leeyahay iyana waynu aragnaa waxa kaloo aynu aragnaa kootuhu iyo xeerku bal sida isu waafaqayaan iyana ka hadalkeeda leeyahay iyadoo laba diidanay war bal dastuurka iyo kootadu maxay la isu goliyin mise way isdiidayin in la isweydiiyaan iyana halkeeda leedo loo doono de tafsiir sharci loo doono oo intaynaan ku guda dhicin loo sii saaxadda looga sii shaqeeyo xeer aynu dhibaatooyinka hortaagnay oo dhan sii xalilay uu inoo yimaado oo dabeedna aynu de xeerkii ka go'aan qaadan karno taana intaasaan ka oran lahaa arrimaha maalgashiga iyo dekeda iyo waxyaalaha mudanayaashu hore uga dhawaajiyeen waan qabaa in golahani khalad weyn ku lahaa dabadda markaanu ka daawanaynay idinkaa dee naga xogogaalsan idinkaa qoraalladii xukuumaddii dee ma garanaysaa ay waday idinkaa la idin keenay annaga gacan kale inoogu timid in heshiis idiin yimid annagu uma haysana dadkaygii dabadda jooga waxa idiin yimid term sheets in respect of concession agreement iyo term sheet in respect of shareholders agreement waa warqad laga soo diyaariyay qodobada heshiiska warqada laga soo diyaariyay oo laga soo guuriyay ayaa idin yimid heshiiskii ma wali mudanayaasha qaar baa ku hadlaya heshiiskii aan ansixinay war dalkan heshiis lagama ansixin dalka been baa loo sheegaya marka la leeyahay heshiis baa ansixin carabta iyo imaaraadka iyo DB World been baa loo sheegaya marka la leeyahay heshiis baa ansixin oo galaasay caalamkana been baa looga sheegaya marka la leeyahay heshiis baa ansixin waran waxaan leeyahay heshiis cid aragtay ma jirto golahanina ma arag cid aragtayna ma jirto term sheet ma aragtay ay xaq hoose kaga qoran tahay yaan loo qaadan inuu heshiiskii dhabta ahaa yahay waa ku qorantay akhrini wala wada dani wala waaxid waxa la misan waa ka gudbaya waa ka gudbaya waa ka gudbaya war waxaan leeyahay dawadu waxay ku jirtaa waxaan leeyahay dawadu waxay ku jirtaa markii la maraayay heshiiska maalgashiga xeerka maalgashiga la hadal xeer maalgashigu dalku leeyahay xeer maalgashi oo loo number 29/2004 ayuu leeyahay xeer maalgashi xeerkaas ciddii heshiiska maalgashiga geli lahayd xeerkaasaa tilmaamay qaabka loo raacayana xeerkaasaa tilmaamay